السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. midhaha aynu u naqaano xabaasuuda ama xabatu sawdaa waxay xagga hore kaga jiraan midhaha laga helo caafimaadka ama caafimaad ahaan loo isticmaalo waana midho lagu daweeyo cudurro badan iyadoo loo isticmaalo noocyo kala duwan waana midho Soomaalidu inta badan ay ka wada dharagsan tahay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo waana midho rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inagu booriyay isticmaalkooda waxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in xabatu sawdaa ay dawo ka tahay xanuun kasta marka laga reebo geerida haddaba marka laga yimaado qaabka aynu wada naqaano ee loo isticmaalo xabatu sawdaa ee ah in la marsado ama la cuno amaba cabitaanada lagu darsado waxa jirta qaab kale oo dhawaan la daah qaaday oo loo isticmaalo xabatu sawdaa qaabkaas oo ah in xabatu sawdaa ama xabaasuuda lagu shido guryaha sidii bukhurka oo kale waxaanay daraasado qaabkan lagu sameeyay sheegeen in xabatu sawdaa marka guriga lagu shido ee qiiqeeda iyo bukhurkeedu guriga uu ku baxo in dadka guriga ku nool xilliga habeenimada ee dadku ay hurdaan ay u leedahay faa'iidooyinkan waxay hoos u dhigtaa daalkii maalinimo ee qofku uu dareemayay iyadoo qofkana ka caawiso inuu ku seexdo maskax degan waxay sidoo kale u fiican tahay dawana u tahay dadka markay hurdaan neeftu ay qabato waxay sidoo kale meesha ka saartaa hargabka haddii qofku uu seexdo qol lagu qiijiyay xabatu sawdaa sidoo kale waxay dawo ka tahay madax xanuunka joogtada waxay sidoo kale wanaajisaa guriga lagu qiijiyay urtiisa sidoo kale waxay meesha ka saartaa bakteeriyada aanay ishu qaban ee guriga ku dhex nool waxay sidoo kale ka eridaa guriga xasharaadka ku nool guryaha sida caarada yaryar iyo wixii la mid ah waxay sidoo kale dawo u tahay dadka qaba xasaasiyadda laabta dadka qaarkoodna waxay aaminsan yihiin in marka xabatu sawdaa lagu qiijiyo guriga inay gurigaas ka erida jinka sidoo kalena ay ka furto sixirka haddii sixir lagu sameeyay gurigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala sida saxda ah ayna waafajiyo aad baad u mahadsantihiin